marka aan isku taagno waxa la yidhi ama marxuumku wuxuu ahaa waxa weeyaan halkaa waxaad ku arkaysaa waxa weeyaan waa qoligii ugu horreeyey oo hubka dhigista lagu samaynayay maalintaas waxay maalintii ugu adkay ee nin waliba diidanaa ee qoryaha la wada sidanay waa stadiumka sidaa maanta aan u xabiibsanoo kalaan ugu xabiibsanay inay soo galaan yimaadaan taasay ahayd waa halgankii ugu ballaarnaa ee markii ugu horreysay aan la galay oo ah kaa laga midhadhiyey maanta aynu ku fadhino haddaan hubkaa la dhigin maalintaa may suurtooyin madaxaan ahaanayna iyo waxaan ahaanaynaa kaasi qodobku ahaa qodobka labaad ee ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa uu maalinba maalinta ka dambaysa soo dhisayey halkan marku khusreynaya imikaad arkayseen dacarbuhu marku joogay waxaan idhi maalintaas waxay ahayd 6 subaxnimo ayaa la yidhi hala dhaqaaqo cawl baa ahaa maayarka hargeysa madaxweynaha maraya meesha waa in la sii abaabulo xaajiyadana hargeyseen baanu keennay meesha ilaa 12 waxaynu taagneen waxa ahayd qadiyadda wadaninimada oo dadkeenu weli ka agsoonaa in aynu baranno oo wax ka reebana ilaahu baana waafajinayay annagu ma haysto ninkan inuu caadi ahaa dadka berberow ama dadka somaliland weli ilaahay uu ahaa sababta waxa weeyaan marka 2001 markuu ka hadlayo ee arkaysaan hadda sawirka waxay ahayd marka uu leeyahay toban guuradii baynu taaganahay toban guurada aan taaganahay tobanka kale la geli doono 20 guurada anigu ma joogo odhanaya dadku wayna dhaadayne anigu ma joogo odhanaya wuu ku celcelinaya laakiin waxaan idiin dhigayaa wixii lagu mari lahaa oo ah dhab haddaad u qaadataan dhalinyarada ay gudgulin lagaa kun iyo kowda khudbadiisa qaadataan ma halaabaysaan meel walbuu ka hadlaya markaa ninkaas horta weli ilaahay u ahaaye muu ahayn qof caadiya kaasi waa dhidibka taagan maanta nin walba dastuurku ku faana waxaan garanayaa maalintaa dastuurka baahargeysa halkay tahay weydinka arkay markaasaa layaa waa baalka cigaal markaasaan joogsadaa oo adan maakii cigaal ayaga dastuur baa ku qorane war waa dastuur weydinka arkay dadkaa maalintaa xitaa qof kastoo shacbiyaan qabanina lahayn aan maxay adag ka yar hadalyeed bal dadka ninimadu bal muhiimatuwatiga waa waxa rasmiga haddaba dhaxalkaa inooga tegey iyo waxaa inooga tegey waxa weeyaan inaynu si miyir qabna khudbadaa waxa ku jirta war shacabku inuu noqdo shacab feejigan oo taagan marka innaga waxay naga gudboon inaynu jaamacadda ku dhigno taariikhdeeda oon ku codsanayaa anigoo aad ugu mahad celinaya runtii berbera councilka berbera gobolka berbera siduu doorkan isu xulqaamay maxay dhalinyaradii jaamacaddii oo haddaanu hogaaminayn damay noqoteen maalinta waxa lalagu yidhi waddanka walaalahayna Ethiopia waxaad gelaysaa arlidan waxa ku yaala sawirkii waxaa lagu oranaya ninkaas waa ninkii halkaas joogay taariikhdii baa ku qoran halkaasaad ka baxaysaa waxaa lagu fasiray lagu oranaya bastuuradkii hebel weye halkan hebel baa fadhiistay odaygii noogu weynaa weeyaan bay ku oranayaan jabeedda ka ahaa marka waxaa loo tago wax caadigaan laga baqanin in berbera taalaa tira birtaa loo daalaalkaa lagu samayno haka baqanina وسلامتي فاتحة الأمة وحنا نقول لك هذه يلا بقى يصدقنا ما تعرفيشون وأنا بدي أقولها تريو دوري الخطبي مرجو لقي هواياكم تبي لوريس رئيسان قدر على بيه حريته تقدر الشمال لا iyo burburinta gaalada gumaystahaas ayaa taariikhdaas ku soo bilaabaysa mid waliba waxay leedahay culeyskooda culeyskeeday leedahay mid waliba waxay leedahay haddii aynu nahay ummad jirta adduunka ma aha inaynu qarino ama aynu soo warwareegno ummad waliba waxay leedahay leadership bay leedahay hoggaan bay leedahay taariikhda lagu xisaabay leedahay لكن الدولة لا تستقر موضوع أيام الأكل موضوع أيام الأكل بعد كده يقول وليه بقى جرا أرجع وما واحد جاي بيت كده الدولة يقول قبله مع إن لا يعرفوا هذا الليدر في شمال
مرة مرة ليدر في زمان أيها ليدر في كذا حرية أيها ليدر في نصر الصوتية اللي وحدة اللي هو معايا بلا بيروها في معايا السنة في وزير الشغل السنة يمكن الشغل ليدر في اليوم كان وقف لكن أصحاب جيسي يوصل المدينة وفي دلال وكل شيء دلال يكون في الرصاص ليس وقت كان إنجليز كلام تكلمني أما حريته أنه النظام كان رقم يوم تجدي وحكتنا مرنا حركة سبرا أنت الشرع الله أنت الشرع الله شيئا مرة سنة كذب بينه سنة ولسنة كل أنا كاتب والله ولا الله لكن حنبل عليها وحصل 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 تاريخ وياه أنت هيك علينا وسيدور وعرفت وهنوم وشيسا أنا أقول إنه وجه كده إلا هذا في دورين كلية وباهن إنه أقرانا إنه كبحي إنه كواهي إنه قلتي وكل هذا البلد إنه فرنس كورتشينو تبغى أنه كلامه تبغى أنه بس كبرنا دبنا كبرنا هاتينا نجيب أميشان أنا هو أمكرهنو أمكرهنا نيرو وبايتماتو ويسنا نروح السطو سلوي الصلاة سريدنا هذا المسوى قرارا ريحنا ريحات محمد علام ويسنا يهدي وهذا قرارا ولا الموت مرموك يقول بالدنيا ودريت وحمدنا تسكت الدنيا إلى أن يمكن الكريمة تجدونها إنه بدي ننظرها ما أنتم بنايها ما أمرنا ولا هيا عبد وهيا وهنطلع داريا إلى فين سكولتيو إلى رسكلو بكرة بكرة نفرو سيعطيك السلام عليكم يا رب وهكذا أنبياء معي حتى يجعلهم مساجد دائما كما قالوا أيضا سنعمل وشرطة وهيقول أن هذا كتير مدرسه هذا يوم قرآن حتى يكون قرآن متجدد إن شاء الله تعالى. marka kelmaddan doonayaa inaan idhaahdo faysal cabdiwaraabe 11 sannadood ee kuskiisii socday 11 sannadood baan ugu meelo taagnaa nagamu maqnayn faysal waa nin qiimo leh laakiin reer sheekh saxaaq ma yaqaanaan ninkooda qiimaha leh markuu sagaabay gartaan ay yidhaahdaan hebel sidaa maxamed raaymaanta loogu ogaayo faysal qiimihiisa maanta garta يعني يجين عوران فايسر دجال كيسر فيجي ولكن أبيه سقيرين فولت ليني أبيه وعند قلة راعي أبو المهدي عندي عيال ذكارية الشابين كل يومها نيجي باركاي الشابين كسر على يومها كسر على نيجي باركاي يبص بيقول ريه السياسة شمال لا تقدر واقعي يومها يقول له ما جي وأنا بقول هاي الله دايم هلا هذا هلا عاويو هلا نرجع استاجو فيصل عليه هذا على يعني وأنا بقول ما نقيا ما يرجع عاصمة قبل الساحل تجمع البلد عبد الشكور عندي أبو جهل وأشوف كل يعني waxaan ku ammaanayaa isagoo nin dhalinyaro ah xuskii ugu horreeyey ee uu magaalada berbera ka qabanqaabiyey wixii dhimana waxaanu leeyahay ku dar cabdishakuuro waxaan ku leeyahay nin dhalinyaro waa tahay xilka allaha kuu fududeeyo oo ha kugu asturo taalooyinka adeertaana badi magaalada baan leeyahay taasi kowa ka noqoto laakiin qaxis iyo gelis iyo meel walba هلا كده مجالات البلد صور كياريكا حلو هان عقاب أديكم بس وشيدا بايس تاريخ كل قبل الساحل وعندها لجبانين أو شرادارة عد كله شرادارة أيات كسو شيدا يلعبنا وقتهاي أول بيسنا معنا لا تعرف الله يا هاي إذا حكمت المال ما يصير
guushii uu gaadhay maxamed ibraahim cigaal uu ka gaadhay somaliland farta haddii aanu saaxib gobolka ka soo jeedin may suurta gashee kolaba wixii somaliland oo qaawan buu yimi maxamed ibraahim cigaal somaliland oo qaawano guryuhu dhulka joogaan sawirkaa waxaan ugu soo qaadnay madaxtooyada waa markii uu galay xataa daahiye kuma xidhna sida madaxtooyada u qaawaneyd ee somaliland u qaawaneyd berberaha dhistay somaliland berberaha fadhiistii ciidanka samaysay haddii aan shilinkaa berber jirin ilaa maanta ilaa maalintii somaliland mayna ha qaadeen marka ugu horeysa magaalo berberi waxaa ahayd caasimad cid walba dulmisay marka adaarigeeda ku noqoto berbera gaaliya islaam cid ka maqlay way jiray huruud baa deganay carab baa deganay yuhuud baa deganay oo dahablayaa suuqa berbera ku haysan jirtay waxaan idin leeyahay dadka reer berberow dadka soo dhaweeya magaalo reer qoreyni ma camira isdhexgalka dadka ma camira isdhexgalka dadka soo dhaweeya say magaaladu u camirato iyo gobolkuba wuxuu ahaa maxamed ibraahim wuxuu ku fakeri jiray inay dekada berbera noqoto ayna la tartato dekadaha caalamka ayuu ku hameyn jiray iyadoo aanay ku suurtogelin laakiin haddii alla yidhaahdo waynu gaari doonaa xilli ay la tartanto caawa halkan kuma arko cali xoorxoor uu maqan yahay cali xoorxoor oo nu mahadnaqayaa shaqada uu ka qabtay xawaashi maxamed ibraahim aad iyo aad baa ugu mahadnaqaya tacsidii loo dhigay maxamed ibraahim cigaal goobkii guusha goobkii kubadda maaha goobkii guusha sanadkan hargeysaa qaadatay markaynu isu qiimano labada xafladooda dhigteen idinkuna kordhiya baan dilaysaa sanadka dambe u qaadataan haddii alla yidhaahdo waxaanu reer berberaha soo jeedinaynaa horta maxamed ibraahim cigaal ma ogeyn inaanu wax maala ka dhimanin wax daara inaanu ka dhimanina waa ogeydeen maanta anu guri karaa baan kaga jiraa ilaa maanta wax la yeeljeelo la sameeyey ma jirto waxaan saaray xoogga mar inaanu halkaa bartalaayo meeshii ugu dambeysay ee uu cagta saaro inaanu taalo uga dhisno taariikhtiisiina dhigno may noo suurto gelin laakiin haddana waa kusii dadaalaynaa halkaa xabaasha imka xasan sheegayna waxaan jecelahay inaynu masaajid dhagax dhigno intaynu wada joogno waayo soomaalidu waxay ka fekeraan hebel waxbaa laga dhaxalayo dhul baa laga helayo waxoogaa lacaga waxaa ka qiimo badan taariikhdiisii meel loo dhigo ayaa ka qiimo badan oloo maran oo cidi bidhaansato ama la idhaha hebel iyo heblaaya ka dhaxlay waayo magu lahayn hadda uka dhaxli maadaama aanu gaarana ku tigi library baanu si degdega ugu baahnay master mayer in berbera laga furo library cigaal library waayo sawirkaan aanu maalintaa la doordoono maahaane ma jirto somaliland oo dhan meelaad gasho taariikhdiisa ama ka daawato ama ku hirato marka waxaan ugu baahannahay in librarygii ugu horreeyey aynu ka samayno magaalada berbera si loogu xasuusto iyo goobtalxiiskooda goobtalxiiska lagu xasuusto labadaas waan idinka codsanaynaa